السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودوا مقال عصب Champions League. وحرب شكلها إن هالكان كوجوسو قد بيو FC بورتو يكوحدة تشيلسي Champions League سيدد ماتكا كواتر فاينل. انت شكلها قدها أقولين وعن كعسن إن سبسكرايب هذا النصارين إن سبسكرايب هذا سرتيد هذا الهوري لجوكتي أكون ما سنتهاي لجوجست هذا مجعيجو وعبد العاقنة جنا كداون يصير وعاقنة جنال كسودوا مقال عصب. sheekadayda gudaha aan u galno FC Porto caawa waxay soo dhaweey doontaa kooxda Chelsea. labada kooxba kuma ciyaari doonaan garoomadooda, waxay ku ciyaari doonaan wadan ka baxsan wadamada ay ka soo jeedaan. waxa lagu ciyaari doonaa wadanka Spain. garoonka Seville ayaa lagu ciyaari doonaa caawa kooxda FC Porto iyo Chelsea ciyaarta dhaxmarayso. waayahay Chelsea maxaa ka cusub, yaa dhaawac ku maqan, yaa caawa safarka raacay. wax dhaawac ah oo ugu maqan kooxda ma jirto. 23 ciyaartoy iyo macalinka iyo staafkiisaba waxay raaceen diyaaradda. Chelsea Nicola Conte oo ku maqnaa dhaawac kulankii West Brom waxaa la leeyahay caawa kuma soo bilaaban doono garoonka, balse wuxuu soo fariisan doonaa kursiga keedka. FC Porto iyo Chelsea waxay iska hor yimaadeen ugu yaraan 6 jeer Champions League. inta ugu badan Chelsea ayaa natiijada heshay. FC Porto ma ahan koox la dhayeysan karo maadaama ay ka soo taqalusiyeen kooxda Juventus. waxay ugu soo gudbeen isku celcelis ahaan 4 gool iyo 4 gool maadaama ay ku dhaliyeen garoonka Juventus ee Turin 3 gool. markii qorituurka la sameynayay nin waliba ama koox waliba waxay jeclaysanaysay inay ku aadaan FC Porto ayadoo lis leeyahay FC Porto way jilcan tahay. balse markii la soo gaaro quarter final ama xilligan oo kale Champions League wuxuu u baahan yahay experience iyo khibrad in lagu ciyaaro. saan wada ognahay Chelsea sanadkan waxa uu ciyaarayo dhalinyaro aad iyo aad u badan oo dhaafsiisaneen 25 sano. waxay u baahan yihiin kulankan caawa inay ciyaaraan kulan experience ama khibrad ku dhisan. haddii ay ciyaaraan kulan furfurnaan ama iska furan, Chelsea waa loo yaabaa in laga badiyo. mid ku darso Chelsea caawa waxaa loo xisaabi doonaa maadaama ay ku ciyaaraynin garoonka FC Porto ee lagu ciyaarayo wadan ka baxsan labada wadan. Chelsea waxay xisaabi doontaa caawa goolka loo yaqaano away goal maadaama FC Porto kulanka ay ku ciyaaraysa caawa ay u matalayaan gurigooda lugta koobaad. isla garoonkan ayaa lagu ciyaari doonaa lugta labaad. Chelsea ayaa markaasna noqon doonta caawa waa noo faa'iido haddii aan goolal ka dhalino FC Porto waxay noo sahli doontaa inaan u gudubno summer final. waayahay markaana waxaan jeclahay inaan saadaaliyo lineup-ku isleeyahay macalinka uu ku soo geli doonaa iyo anigana saan jeclaa inaan sameeyo. adigana waa ila wadaagi kartaa lineup-ka jeceshahay inaad caawa ku soo gashid ama jeclaan lahayd inaad ciyaartid aad daawatid ciyaartoodaas oo ciyaarayso. ku soo dhawaada lineup-kayga. waayahay ku soo dhawaaw lineup-kayga. sidaan waaye lineup-ka. goalkeeper-ka waa la shaka waxaan soo geliyay Mendy. difaaca dhexe ayuu war ka taagan yahay maadaama Thiago Silva kulankii West Brom uu qaatay red card. Andre Christensen aan ognahay qaab ciyaareed wanaagsan oo ku jiro. waayahay goalkeeper-ka waa Mendy. difaaca dhexe ama gadaal saddexda difaac waxaan soo geliyay Azpilicueta, Thiago Silva iyo Andre Christensen. labada garab ee weerarka amarna difaaca ah waxaan soo kala dhigay Ben Chilwell iyo Reece James. qadka dhexe caawa Kovacic lama keeni doono ama lama wadaagi doono inay la ciyaaraan Jorginho iyo Kovacic. waxaan ag istaajiyay Kovacic Mason Mount. weerarka haddaba caawa kale waxaa loo baahan yahay nin khabiir ah oo Champions League dheer xoogan. waxaan soo istaajiyay qaybta hore Olivier Giroud. waxaan agtiisa istaajiyay Hakim Ziyech iyo Kai Havertz.
waxaan ku saadaaliyey kulankan inuu ku dhammaan doono Chelsea 2 gool iyo waxba adigana leenabkaada nala wadaag iyo ciyaarta inta ay ku dhammaan doonto waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan sii share garay asxaabtaada Chelsea la wadaag mar labaad ha iloobin inaad subscribe noo saartid waa naga codsi aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh